musharaxa xisbiga waddani guddoomiyaha xisbiga ucid haweenka xiriirta ah xildhibaanada iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee munaasabadda 18 May ka soo qayb galay marka koowaad waan salaamaya waa sanad guuradii 31 ee qarankeena waa 18 May waa maalin weyn waa maalin taariikhiya waa maalin nololeed waa maalin nabadeed waa maalin xorriyadeed waa maalintaydii waa maalintiinnii waa maalinteennii shacabweynaha reer Somaliland ee dal iyo dibadba kala jooga waan hambalyeynayaa waxaanan ku hambalyeynayaa munaasabadda 18 May waxaan leeyahay reer Somaliland oo ma qurux badnaan kartaan haddaan Somaliland qurux badnaan waxa ma noqon kartaan haddaan Somaliland wax noqon dalkeena ayaynu ku nahay Somaliland waa shamca ka dhex dhifaya geeska iyo gobolka oo nabadgelyo kaga ifaya oo xasilooni kaga ifaya oo deganaan kaga ifaya anu munaasabaddan waxaan u yimiday inaan u hambaliyeeyo farxadda idinla qaybsado shalayna abwaan qaran baan ahaa maantana xildhibaan qaran baan ahay haddii halkan munaasabaddan lagu xusayo mid kalena madaxtooyada lagu xusayo macnaheedu maaha in la kala qaybsan yahay waxay muujinaysaa miisaanka iyo weynaynta maalintan aan u hayno haddii jiilashii 60kii noolaa gobonnimo doon ahaayeen jiilashii 80kii noolaana ay Somaliland maanta aan joogno suuro geliyeen jiilashaan ka midka ahay ee ka midka tiin waxaa laga doonayaa wadajirka iyo xasiloonida iyo nabadgelyada dalkan inay qaybtooda ka qaataan runtii anoo xisbiga kulmiyaan ka tirsanahay haddana waxaan mariyo 2-3ba qalbiga ka jecelahay in maalinta 18 May oo ah maalin weyn oo wada leenahay qof kasta halkiisa ku xuso waxaan idin leeyahay sanad guuriyo guul